xuruubtan caalam islaami ka dhacday iyo dagaaladan ka dhacay dad badan oo muslimiin American tagay waad ogtiin qaxooti badan baa jooga marka waxay isku dayeen in qaxootigaana ay ka dhex shaqeeyaan oo diinta ku dhex ay nasraaniyada ay ku dhex faafiyaan waxaan garanayaa 2015 kii maraan magaalada Minneapolis aan laba bilood in ku dhow aan joogay ayaa masaajid ku yaala suuqa Soomaalida dhowr suuq baa ku yaala laakiin ka ugu weyn oo Carmel la yiraahdo ayaa niman cadaan oo nasaara ayaa ku dhex wareegi jiray suuq dukaano fara badan baa ka furan Soomaali maqaaxiyoodii dukaanadoodii waxoogii oo dhan meeradoodii waa meel de waa Muqdisho yar baa la yiraahdaa wada taajib saadaad aragto marka niman nasaara ku dhex wareego cadaan oo doonay inay Soomaalidan maxay ku faafin waa wada islaa waa dumar wada xijaaban oo ma sha Allah alayhim dukaankaygaas la soo dhex fadhidaa xijaabkayga weyn tafsiir iyo cajaladii culimada af Soomaaliga nagu dhageysanaysa hay ku faafin marka habeen baa anagu salaadii cishaa ay tolan maghrib been maghrib cishaa xilliga hore kaleed baan filaya ama bacda cishaa anagu masaajidka fadhinaa ayaa waxa lagu yiri maxamed oo niman baa jooga halkan nasaara ah oo ku soo noqdo suuqa oo bal weeraan nimankii waa niman dhalinyaro masaajidkan aanu u dhex fadhiisanay oo wada hadalay طبعا waxaan ku hadalay de waxa idin diin iyo islaamnimada de wax isku sheeg bay ahayd kursigan sheekhayna u dhibe sheekh Jaabir geey kursigan Allah yafadka amarta kursigan waxa dhacday markaa ikhwaani waad aragtaa siday u dhex socdaan suuqyada muslimiinta siday u dhex socdaan suuqyada muslimiinta waad aragtaa magaalada aanu deganaa Portland la yiraahdo ayaa waxa aan ogaanay Islaam Center kan u jeedaa waxaan ogaanay nin Mareykan ah oo isagii xaaskiisa iyo dhowr kale isku xiran yihiin ay Soomaalida ka dhex shaqeeyaan tabaa waxa jira dad badan oo in Mombasa iyo Soomaaliya Nairobi iyo Kenya kimid af Soomaaliga yaqaan aad far badan marka xaaskiisa waa gabadh cad soo waa nin cad weeyaan xaaskiisa ayaa aabaheed baa baadari ka ahaa muddo badan East Africa waliba Tanzania ahayd baan filaya Tanzania uu baadari ka ahaa ilaa nimankan waa niman ishibeeniya weeyaan way u go'ayaan caruurtiisna halkaas uu ku korsaday marka inantiisan oo ninkan kristaanka nasraani uu qabaa ayaa af Soomaaliga ayaa fluent bay ku ahayd caadi ugu hadisay sida qof Soomaali ugu hadisay dad badan oo Soomaali oo af Soomaaliga ku hadlay ayaa joogay magaalada waliba marka iyadu dumarka Soomaalida ka dhex shaqeyn jirtay balinta ku fiirsada waxaan ku ogaanay waa la soo sheegay wadaadada masaajidka mar xilli samar aheed ayaa inamo muslimiina ayuu ninkani aan xustaa magaciisa Mike baa la oran jiray ayaa wuxuu sameeyay barnaamij uu sameeyay waxaan u baahnay in dhalinyarteen aynu ku dadaalo wuxuu sameeyay jiray in ciyaalka Mareykan wax jecel yihiin basketballka hubin baa leeyahay aad bay baasha ay ugu baahan yihiin barnaamijyo program basketball iyo markay dhameystaana oo waxaana cunayro mar waxa siinaya garamadii inuu soo iibiyay tiimamkii markaan ogaanay ayaan dhalinyartii aan ku dhex dhacnay alxamdulillah waan ka ridnay barnaamijkiisa uu soo khidayna dadkii masaajidka joogay way kala tuureen alxamdulillah laakiin xaaskiisu waxay qabanaysaa maadaama af Soomaaliga taqaano dumar badan oo Soomaali af Soomaaliga ay ku hadlaan oo dhinaca ka yimid Kismaayo ilaa Mombasa ilaa Nairobi ilaa Kenya ilaa Tanzania afkriskiina ay qaarkood garanayaan ayaa marka dadka qaxootiga ay yimaadaan ayaa waxa soo barnaamij ay kaga caawinayso waxyaabaha asaasiyaadka ah ee qof walba oo Mareykan ku cusub u baahan yahay maxaa kamid ah in luqadii afkriisiga la baro ilaa dumar baa jira marka bal u fiirso bal wadaado u fiirsada waxay ogaatay in dumar badan oo muslimiin oo dhex xijaabani inay college tagaan oo ay rag dhex fariistaan aanay doonin qaar bay guryaha ugu yimid jirtay can you believe that hal tusaddiqu hada juhdiga ay wadaan iyo inay iyagu ay isbedelaan waxyaabaha qaarkood ay isbedelaan sidii maxay tolay ay dadkan ay u kasban lahaayeen sidii dadkan ay u kasban lahaayeen waxay bari jirtay af-Ingiriisiga basic English waxay ka caawin jirtay driving license-ka iyada bari jirtay sida gaariga loo kaxeeyo ilaa Mareykan gaari la'aan ma shaqaynayso noloshaadii baa noqonaysa nolol aan de si qofka aan Mareykan gaari kaxin taqriiban waa qof curyaani weeyaan noloshaada ku xiran gaariga soo loo kaxeeyo license-ka
in driving license-ka sida loola soo baxo waxaa badan oo saasi ka caawin jirtay maxay ugu jeedaa waxay u jeedaa in dadkan ay mawado iyo naxariis iyo caawitaan ay caawisay ay ku kasbato dadkan waa dad imtixaan weeyaan waxa iyadu isleedahay talow maalinuun dumarkaasi laba kamid ama saddex kamidii inuu qalbigoogu isbedelo uu yiraahdo warta dadkan dad xun maaha soo tan caawinaysa soo tan wax la qabanaysa deetan ay halka ay ka galaan markaasi taasi mid weeyaan waxyaabaha mutamarka in lagu qabtay ka soo baxay mas'ala kale jirto ay mutamarka kaga hadleen waana mas'alo yani bil'aanimada lidku ah laakiin xumaantooda aawadood iyo cadaawadda iyo colaadda islaamka u hayaan aawadeen way qarsan kari waayeen bunuudda diraasada ay soo saareen inii sheegayna way ku jirtaa maxay tahay waxay idhahdeen kawaarista dabiiciga natural disasterska ee dunida islaamka ka dhaca ama ha noqoto duufaano dhacay abaaro dhacay dagaalo dhaco ay dad qaxeen intaba waa inaynu uga faa'iidaysano sidii aynu diinteenna ugu dhex faafin lahayn dadka muslimiinta sababtaasaan u idhi waa waqaaxad weeyaan inaad qof doonaysid inaad cunto aad siisay aad diintiisii aad ku beddesho marka meel kale ay u soo maraan ilmo sii dhimanaya oo boggii calooshii ay isku dhegeen hooyo ay diifi hayso oo gaaja ay dilayso ilmaheygina uu ku ag baktiyaayo ayaa waxay doonayaan inay jeex roodhiya inta afka u geeyaan ay dhaahdaan ilaahay ciise ahaa ayaa ku siiyey tacaala allahu camaa yaquuluun haddaad masxi aad ku samayso caalam alislaami maanta kawaarista ka dhacdo oo dhan waxaad arkaysaa inay istiqlaal ay ku sameeyaan istiqlaal in ay ku sameeyaan meelo aanay muslimiin gaadhinna ay gaadhaan waxaan garanayaa sideetanadii muctamar aad u cajab badnaay oo aad uga faa'iidaysana culimo badan aanu kala kulannay oo sanadkiiba mar la samayn jiray wuxuu socon jiray ilaa 5 cisho sideetanadii markaan ardayga ahaa ayaa mar baa waxaa muctamar ka soo qayb galay doctor cabdiraxmaan sumayd dhakhtarkii kuweytiga ahaa ee noloshiisa oo dhan u hibeeyey afrika u hibeeyey xaaskiisii markii dambe ka haystay kaymaha galay dee isbedelay dee dhakhtar buu ahaa nin dhalinyaro berigaa waan garanayaa wuxuu keri karaayey inuu dee noloshii khaliijiinta uu kuweyt kaga noolaado lacag badan iyo adduunyo badan iyo daaro qurux badan oo iskaga dhex noolaado laakiin waxa weeyaan damiirkiisaa siin waayey inuu ka aamuso shuqulka tansiiriga ah ay nasaaradu ku hayaan afrikada madow ay ku hayaan wixii biskaga tegey jazaa allah khayr xaaskiisuna way ku taageertay oo way isgarab taagtay nolosha adag ee kanaacadu ay cunayso ee magaranaysaa mararka qaarkood kaymo in khatara ay dhex gelayaan ay kula noolaatay taasina waa risaalaan u diraayo gabar walba oo xaas u ah sheekh ama daaci diinta u shaqaynaya inaanay maalinna ku odhan wardee ma waxa weeyaan ma annagaadna qabtaa mise waxaad qabtaa in dacwadan iyo masaajkan baad qabtaa gabar baan garanayaa kanadaheedo wadaadkeyga ayaa aad islamic center kanada ku yaallay aad uga shaqayn jiray way odaygii way dhibtay markii dambe ku tiri dee nio kala dooro dee ama anigay dooro ama dee meeshan aad xarunta islaamka leedahay waxbaan ka wada hadlayda kala dooro labadeedana wada qabi mayside waa khata weeyaan walaasha muslimadda ee diinta fahansan waxaanu doonnaa inay iyaduna daaciyad noqoto ninkeygana hadduu sheekh diintii wada oo tafsiirkii akhriyaaya oo islaamkii faafinaya ama dee daaci diintii ka shaqaynaya ilan ducaad baa jirta aan ma garanaysaa dee aan iyaguba diintii ku dhex jira ama camali khaasiya wada waxaa walaasha muslimta looga baahan yahay in ay ku taageerto oo weliba dafcido sidii dumarkii salafka
ay dafcido tiraa wad in sha allah biidni tacaala intaynu adduunyada kaga raaxaysan lahayn jannadaynu kaga raaxaysan lahayne raaxada adduunka inagu dhaaftaana jannadaynu insha allah ku barwaaqayso inaynu ku mashxaradi aan kugu mashxaradi doono ay tiraado haddaba doctor cabdiraxmaan qisuu marka sheekiyey waana fadhiyey maalintaasi mutamarrid raabita shabab muslim carabi ka mid ahaa wuxuu yidhi mar baan go'aansaday buu yidhi inaan lilaahi aan u tago meel aan de marka waxa ahay mandaqadu doonaya waa mandaqo dad diimahan wathaniga ee afrikaanku ay rumaysan yihiin wuxuu waxaan ku tashaday inaan tago mandaqad aan qof iga horreyn sidaan ilaahay ugu dhawaada camalkaasi saa waxaa la ii sheegay dadkii muslimiinta dee nala joogay buu yidhi ayaa waxay sheegeen meel kayna oo dee dad yaryar dad afrikaanoo qabaa'il yaryar unbaa ku nool laakiin lama degaana waa kaynba gaarina laguma gaadhaa la yidhi gaarina laguma gaadho oo maxaanu samaynaa diyaarad karaysatay helicopter karayso ha ku qaada helicopterku kaynta ha kuu dhex dejiyo dee waa adigiyo qabaa'isha afrikaanka iyo dee libaaxyada iyo shabeellada meesha ku nool waa tegiyaa buu yidhi waan tegiyaa si aan u caga dhigo meel aan diinta islaamka hore loo gaadhsiin bal dadka hamigooga ikhwaani hamigoog innagana muslimiin baa inala nool gaala inoo timaada bal nimankan afrikaanka mise madaaristeennii joogay wada kiristaanka ah ee carruurteennii influenceka ku samaynaya maynu barnaamijyo u samayno maynu dacwada gaadhsiino maynu bedelno qaar baa u furan inan baa lii sheegay maraykanoo halkan joogtay waay islaamkiiba jeclaatay markii dambena inan soomaaliya guursaday inan soomaaliya guursaday dad badan ba haddii loo sheego aqbalaya waayahay doctor cabdiraxmaan dee helicopterkii adu wuxuu ku haystay oo diyaaraddeeneed kayntii baa la dejiyey meel tuulo yaroo ay joogaan dad qabaa'il afrikaani wuxuu yidhi wayaa lilcajab waxaan la yaabay buu yidhi waxaan ugu tago ii soo horreysay islaan nasraaniyadoo baadariya maaha qof dhalinyaro maaha islaam weyn bay ahayd buu yidhi hataa waxaan filaya inuu yidhi malaha iminka daagiradu haddaynay khiyaameen 70 jir meelaha gaadhay oo yahay buu ku leeyahy 70 jir islaan da' weyn oo nasraaniyada oo reer galbeeda ayaa iga horreysay meesha dee waa kii hawshii bilaabay kumaankun masaajid dhisay kumaankun dadii ay maxay toleeyihiin ay ku muslimiin gacantiisa islaamka afrika ku dhex faafiyey marka waxaan ujeedaa ikhwaani saasay nimankeena waxaas oo dhan ay uga faa'iidaysanayaan mutamarkaasina saan ku weli waan idiin sheegay buugga laga qoray iyo in tawsiyaadka ka soo baxay way qoran yihiin marka inaad dib loo diraaseeyo oo loo akhristo si ay waayo ikhwaani markaad mu'aamaraadka cadowgaaga markaad akhrido eed fahamto wallaahi waxa weeyaan waxa odhanaya war maxaa meesha idhiganayo maxaa meesha idhigay maxaan diinteedan aanan ugu shaqaynayn maxaan ugu koobsanayaa salaadan tukado iyo cimro aan sanadkiiba aan mar soo cimraysto maxaan ugu koobnaanayaa intan war diintu mayna rag u baahneen diintu mayna dumar daacida u baahneen haddii saxaabadii aanay meel kasta gaadhin miyay maantayna soo gaadh lahayd waay